بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan mahad oo idin iskale ilaahay waxa kale oo mahad celinaya guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha galmudug oo maanta aan iska diiwaan geliyay aan shahaadadina ay siiyay anoo ku rajo weyn inaan ku guuleysto musharaxiinta kale oo galmudug waxaan u sheegayaa anigu waxaan ahay ninka ugu fulisan oo marka u horeysa ka carara meesha 8 maalmood waa ka maqnay umayna kadibna waxaa ii caddaatay in howl ku sugaysa inaad wax ka qabato ama ka qayb qaadato inaan lagu fursan karin waxaan ugu baaqayaa marka walaalahay waxaan ugu baaqayaa inay yimaadaan registration ka sameeyaan dood waxay qabaan oo xaqiiqo ah run ah miiska ay saaraan aniga marka hore waxaan ugu cararay sababtoo ah in sheegaa markaan dhowr meel la sheekaystay oo arkay in xoogaa khilaaf fara badan uu jira khilaafkan ka cararay khilaafkan lagama carari karo bini aadamka waa lala abuuray khilaaf oo aayad quraan oo sheegaysa oo walaw shaa rabbaka la jacala naas ummatan waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin laakiin waxaa loo baahan yahay khilaafka سل وحليا حلك وحلو واست حلك هذه العرر سيد مركب رأس ما عمل حل قارمة نمر بدنا حد وعرر حلك وحوك جرا إن لوهذا حلك وحوك جرا إن لوهذا في ديست لوهذا فلانقة وأرنت سك السلافيري أيده إله التبصارنا إنه توفيق على نوافجي وحوك باقي مركب قف كسب مشرحين تي هرا كميدة أما كو عصب أنا كغيب قتان tartanka waxaan si xushmad leh ugu codsanayaa guddiga qabanqaabada doorashooyinka iyo guddoomiyaha gacalba in haddii ay suuragal tahay waqtiga waxay ugu daraan dadka waayo aan nafteyda haddii waxaan lahay alxamdulilah waxay ku dhaafeen meeshii markaan arkay inay xoogaa weli saas tahaan maas ka soo carar maanta waxaan rajaynayaa dad badan inay kasoo qayb qataan hawshan waa hawl noo taal hawl u baahan annaga inaan wada fadhiisano oo wax ka qabanno qof kastoo galmudug u dhashay markaan leeyahay waxa ku bees garaysanta waxa way ku dhisan tahay qof kastoo deegaan ahaan ka soo jeeda galmudug waxaan ugu baaqayaa in la isu dulqaato in la isu sabro ya la isu yimaado la wada hadlo xal laga gaaro arrimahan marka waxaan rajaynayaa in dad badan ay kasoo qayb qaadan doonaan waxaan rajaynayaa guddiga guddoomiye gacal iyo guddiga qabanqaabada doorashadana in ay awood yar ay siiyaan wax un maalmo ku daraan wax alla waxay ka noqoto marka waxaan kusoo koobaya arrintii soomaalidu waxay tiraa gacmo wada jira wax ku gooyaan horena waa u sheegay waxa waaye gacmo aanan wada jirin wallaahi guul ma heebsadaan guul galmudug say u gaarto waa inaan gacmaha isqabsanaa annagoo ra'yi kala duwan qabna xataa waa inaan gacmaha isqabsanaa dadka masaakiinteena aan mataqaanaa wax alla wixii loo qaban karo u qabanaa waxna waa qaban karnaa marka saasaan kusoo dhammaynaya waa mahadsantihiin maalmahanna waa jooga kulley meelahan wax baan qaban doona insha allah haddii raalli ka dhigo